shacabka ku ganacsada suuqyada magaalada Hargeysa oo xaaladooda ganacsi u kuurgalay muqbahiya caalamiga ee VOS News ayaa cabasho baan ka muujiyay dowladda hoose Hargeysa oo ay u soo jeediyeen inta aanay wada badnayntu soo gaadhin in ay u samayso meel ay ku ganacsadaan iyadoo muddooyinka u dambeeyay dowladda hoose magaalada Hargeysa wada badnayn ka waday gudaha magaalada Hargeysa taasoo ay ugu yeedheen inay soo celinayaan bilicda caasimadda balse sababtay kumanaan ganacsato danyar oo ku ganacsada suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa inay ganacsiyadoodii ka galaafteen. Maxamed Abdullaahi Aadan waxaan ka mid ahay kaariyoolayaasha reer suuqa markaa ka ganacsada haddaan dhibtayda ka hadalno waxaan dhibta horta qof walba way haysaa dhibtiyo dawladdu waa tan wax dhisaysa marka xagan ay naga saameysay wadooyinkan la dhisayo waxaan leeyahay dawladdu horta way ku wanaagsan tahay inay wadooyinka noo dhisto waayo dhalinyaradii ku korayay baan wadanka marka laakiin anigu waxaan odhan lahaa fikirkayga ahaan dawladdu soo jeedin lahaa inay ahdo inay kolba wadada dhisayso mooyaane wadooyinka kale la iskaga sii ganacsado si aan burbur ku wada gaadhin dadka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. anigu aad iyo aad baan mowqifkayga ugu qanacsanahay inuu wadooyinka la baneeyo oo heewayada la baneeyo oo wadooyinka magaalada loo saaro oo ah anagu nafis baa una laadaan maadaama nahay kaarnayaasha ku ganacsada wadooyinka sanaaba anaga dalnuugu jirtaa dadkana in la garanaysa la kala nidaamiyo oo la kala farsameeyo oo meel la kala geegeeyo oo magaalada la balaadhiyo. waxa la yarta waxaan ahay ganacsadayaasha kaaryoolayaasha suuqa tan ku rajacay suuqa ahay anigu horta cashuur baan u bixinaa dhaqaalaha inta badan wax laga yaabo anaga intii horta magaalada la dumiyay wadooyinka sameynayay inta badan anaga naga soo baxdaba waxaad sheegtay la nacama juraynayo anagu wax cadeyno ma hayno laakiin miyaanay ahayn inaad idinku suuqii gawaadhida ku xidhiidhiyeen maadaama wadada aad ugu dhowdiin miyaanay dhan taarkan ma anagu wadada waan ka baxnaa hadii la yiraahdo banaya caadi banayna laga habeeyay oo ka bixin hadii meel la sameeyay oo ka bixin inta waan kaga bixin macaadi qoyn laga dhaqaajiyo oo ka bixin laakiin anagu day meherad nimkan in meherad haysta ayaa meherad laga qaadaya sigiisna meherad waa iska qaadanaya tan sidii ku ayaa xayran ku noqonaya madugida ku galay dadka ku baadhanaya taasina idana ma aha wasana anaga dan ugu macquul ma aha lafteeda hadaan ka doodi karno hore uga doodi Waawil Cabdiraxiin Geysay Burcay warbaahinta madaxa bannaan ee VOS News magaalada Hargeysa.